madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa shir saxaafadeed ku qabtay xarunta madaxtooyada deegaanka. Shir saxaafadeedkan ayaa madaxweynaha lagu weydiiyay su'aalo ku qotoma mashaariicaha ka socda magaalada iyo diyaar garowga laga sameeyay xuska munaasabadda 29 Hiddaar ee sanadkan ay marti gelinayso caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa kula dardaarmay bulshada deegaanka inay martida la joogto ay ku qaabilaan dhaqankii lagu yaqaanay Soomaalida ee martisoorka iyo soo dhaweynta maadaama sawirkeena laga arko uu ka turjumi doono cidda aan nahay bulsho ahaan. waxaan shirkan jireed maanta u qabanay inaan ka hadalno barnaamijka ballaaran ee ka socda deegaankeena gaar ahaan xuska maalinta qoomiyadaha dalka ee lagu xusayo markii 18aad magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida. sida la socotaan ujeedada xuskani waa in shacabka shucuubta kala duwan ay isku bartaan qanadooda isku weerarsadaan sidoo kale walaalnimo iyo midnimo uu ka soo baxo isbarashada iyo isu imaatinka. xuskan mid la mida 10 sano ka hor ayaa lagu qabtay deegaanka xaalad ka duwan xaaladda maanta uu ku jiro kale isagoo uu ku jira xaaladaas oo ahayd xaalad caburis xaalad xasuuq xaalad runtii ka dhana bini'aadanimada oo ka socotay deegaanka ayaa lagu qabtay xuskan noocan oo kale ah. waxaa farxad noo ah 10 sano kadib in maanta lagu qabtay xuska maalinta qoomiyadaha iyadoo oo si buuxda loo ilaaliyay xuquuqaha aadamaha iyadoo oo xorriyadda qowlka deegaanku uu aad iyo aad u wanaagsan yahay iyadoo ganacsigu uu xor yahay iyadoo oo diinta iyo muxuu ahaa akhlaaqiyadka bulshadu si weyn u soo kabatay in barnaamijkan lagu qabto magaalada Jigjiga waan ku faraxsanahay. waxa kale oo aan ku faraxsanahay in barnaamijkan maalinka qoomiyadaha isaguna uu dhaxalsiiyay in la dardargeliyo shaqooyin horumarineed oo ballaaran oo ay ka mid yihiin qurxinta iyo kuwa la xiriira ismaasha jidadka iyo biyagelinada ee magaalada Jigjiga. taas oo isleenahay in kastoo mashaariicda badankoodu ay ahaayeen mashaariic la sii qorsheeyay haddana xuska maalintan Hiddaar 29keeda ee maalinta qoomiyadahu waxay noo saamaxday inaan dardar gelino oo xilli ka kooban xilliga ay ku dhamaan lahaayeen lagu horgeliyo taasoo cashir fiican runtii ka baranay oo ah in haddii dhaqdhaqaaq ballaaran la sameeyo la soo gaabin karo xilliga aan mashaariicda ku dhamaynayno dabagalkeeda iyo haddii la joogteeyo. marka waxaan ku faraxsanahay inaan maanta deegaankanaga oo nabada ku soo dhaweyno dhammaan shucuubta dalka Itoobiya oo dhan ka imanaya waxaanan socda barnaamijkaasi oo maanta aan dhexda kaga jirno hadda ka hor wuxuu ahaa mid hal maalin la xuso laakiin sanadkan waa mid ilaa iyo 5 maalmood la xusayo. marka barnaamijku uu inoo bilowdayba waxaa harsan qaybihii gunaanadka ee madaxa sare ee dalku ay imanayeen ma garanaysa lagu soo dhameystiriyay dood cilmiyeedadii iyo waxyaalihii kale xafladihii kale dhinaa laakiin waan ku dhex jirnaa barnaamijkii. waxaan ugu baaqayaa shacabka inay amniga ilaaliyaan intaas inay marti geliyaan soo dhaweeyaan shucuubta fara badan ee inoo imanaysa waayo sawirka aan bixinayno maanta waa raasamaal inoo yaala Itoobiyada kale oo wajiga halkan dad kale inagu yimaadaan inagana inagula dhaqmayaan. marka in aan la soo dhaweeyo martida ayaan ugu baaqayaa wad mahadsantiin.